dabley ku huweysneed bastoolado ayaa abaara duhurnimadii maanta ku dileen askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya suuqa weyn ee degmada Wadajir kadib toogashada askarigaasi ayaana goobta waxaa israsaaseyn ku dhex martay dableydii toogatay askarigaasi ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyadoona ugu dambeyn mid ka mid ah dhaawac uu soo gaaray midka kalena gacanta lagu dhigay sida uu xaqiijiyay goobjoog ku sugnaa goobta mid ka mid ah warbaahinada madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Baaran lixii barkii oo saacii bar ayaa askari lagu dilay xaafadda suuqa ee degmada Wadajir. waayahay askarigaasi ciidamada uu ka tirsanaa waa nin askari ayuu ahaa sida la sheegay oo ka tirsan ciidamada dowladda. haye dilka kadib labada nin wax dishay israsaaseen ayaa meesha ka dhacay labada nin ee baxsada ugu dambeynna waa la qabtay. yaa qabtay waa ciidamada degmada Wadajir ayaan rasaas iyo waxaa dhex martay xoogaa rasaas ayaa dhex martay israsaaseen kadib labada nin waa la qabtay. nimanku marka waxa ay yihiin ma la ogaaday waa niman bistoolada ku weysan ahaayeen marka mid kamid ah dhaawac